guud ahaan caalamka waxaa ka jira laba xilli oo dadka wada dareemaan balse ay u kala xanuun iyo tiiraayo badan tahay oo kala ah xilliga roobka iyo sidoo kale jiilaalka kuwaas oo kala wata abaar iyo barwaaqo. marka loo eego waddankeena Soomaaliya labadaasi xilli waa la dareemaa waliba si xoog leh waxaana aragnaa dad masaakiin oo xilliga abaarta ka cabanayo gaajo biyo la'aan caafimaad xumo iyo sidoo kale dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool miyiga fogo oo xoolaha ay ka laadaan ayaga oo ay ku dhacaan xanuuno aan la garanayn. dadka ayaana xilligaasi kuwa la tacaalayo naftooda iyo midda dunyada guud ahaan uu saameeyo miyi iyo magaalo. dadka magaalada ku nool qaarkoodna ay yihiin kuwa ku nool kaamam ku yaala magaalada kuwaas oo la ildaran xanuuno kala duwan iyo gaajo. dadka dhibaatadaasi ka soo baxay ayaana waxa ay yihiin haatan kuwa la dhaladhacayo xilliga roobka oo aynu haatan ku jirno sidoo kalena magaalooyin qaar ee waddanka ay ku fataheen biyo kuwaas oo ka dhashay roobka da'aya taas oo ay u dheer tahay buux dhaafka labada webi ee dalka kuwaas oo magaalooyinka ay maraan aad ugu fatahay xilligaana dad ay u dhinteen biyahaasi qaarna ay ka barakaceen guryihii ay ku noolayeen ayaga oo ka cabanayo gaajo iyo hoy la'aan sidoo kalena xanuuno ay ka dhalan karaan biyaha halkaasi fadhiistay iyo goobaha dadku ay isugu tageen kuwaas oo aan ahayn meel ku habboon hoy uuna u sii dheer yahay cudurka COVID-19 ee ku sii fidaya dalka. wadamada qaar biyaha roobka intooda badan waxaa loo sameeyaa goobo ay ku hakadaan kuwaas oo ka baaqsada dhibaatada biyaha dibna loogu nacfiyo loona isticmaala xilliga ay jirta abaartu sidoo kalena ay biyuhu ka yaraadaan webiyada maadaama biyaha roobka ee webiga ku darsami lahaa ay yihiin kuwa aanba soo gaarin webiga. haddaba dhibaatadaas oo jirta waxaa loo baahan yahay in aan ku shukrino Allah subxaanahu wa ta'ala kadibna aynu wajahno dhibtana haysato. wax kasto xal ayay leeyihiin balse waxa la rabaa ayaa waxa ay yihiin in lagu run sheego waxa markaasi taagan. dadkeena waxaa labada xilli ee roobka iyo jiilaalka ay yihiin kuwa ka cabanaya dhibaatooyin xilligaasi jira balse dadka ay wada dareemayn laakiin ay u kala xanuun badan tahay. qaar ayaana waxa ay ku jiraan guryo qabow sidoo kalena haysta nolol ku filan xilliga balse ay jiraan kuwa hoy iska daaya caawaba wax ay cunaan aanan haysanin kuwa oo ay ku jiraan hooyooyin da'a caruur iyo sidoo kale dhalinyaro. waxaana loo baahan yahay in aan ka faa'iidaysano khayraadka alle na siiyey oo roobka bal ka waran haddii ay sii socon lahaayeen abaaru dadka kadib maalmo iyo habeenimo cimilada Muqdisho kulul bulshada caasimada Saaka waxay ku waabariisteen raxmadda Alle oo xalay iyo saaka si loogu dul hortay roobka deyrta oo ka curtay inta badan gobolada dalka ayaa biyo dhigay xaafadaha Muqdisho waxaana aad ugu diirsaday shacabka caasimada sidoo kalena aynu qurxino waddankeena dibna aynu u dhiso asaga